dimuqraatigi yadeeqda keenayo caalan daaweeya deeqo waloowa dadoomin caana lagu durduurto waloowa tugsina baqadgeliya daarakeeno dhiso dalka horu markayso waloowa dadoomin daayaxshaane iyo toobano waloowa dhayda iyo karu horkeesa kiyahandhino dhowrashada uroono rabowa la dhiicin dhiibka caalawaya qalbigoon muiga qarxa na sida qawada geelo qowyihiin nugbaadiyo qarijo qodagteediyo qolcalen lalageeyo wiilqabkeeda yaqaana qadadii duhurkii qurbaceeda kulaaba afartii qumaneed magowgii qabadsiiso qabaygii laga dhosh qabowgiina dhehiya waa la waayay qabaygiina dhehiya waa la waayay qabow maxaan kaaga son qaxootaan u dhex jooga xamar bujo naqarasha waaye qalbiga warmooyiga qarxa abuguday ka timid omaniyo kulaylistarkumeynogay abahii dhala aalubeheydaha ehiddeeyo habdhaqankayga lama hele holka wayna jigjiga helama kugu tumo halkanaagu dhawe dhayda laga heli dhalgobeeday ma dhagaxlaad kasoo dhama fogan dhagaxlaad ma kasoo dhacayba intuu jilaal kulul baa ka dhacay dhalaankii uu jiibsan lahay jabaqdaas ku yaadha baahibu la joogi lahay jiinleydii maasadii dhaantadii la joojiyo abwaanada juuqdi gabo jaabka anagu faarq way gidibkii jala kuma jirto gabdhihii wada jahoradana jacayl wax la jela lawaa ee dhaxjoog maysiilaan waan jaqaafino jubada horumartay madooba u jilib dhigiya kismaanjaan u jeedsano farmaajan jaar la noqoni jawaab baa iga hadhay jigjiga labadii u sareysay waa maayar iyo madaxtooyada magaalo jigjiga labadii u sareysay jid waaqiya reeysa jiirkiya bisada ku ooman waxaan jirto jeelkii noga baahayda jid waaqiya reeysa qaday jeelkii xidheen ogaadeen lagu jirdilo dadkiina aad jirteen jaliya baad siinayaan jinoola raamaalihi niman jaamacad ka bixin gabdhaha u jilib xidhay jahanaba gal ilay haday cabdi jeel ligeen ma jagida kaaga dar jijiga ka buuxsanto gabdhihii wada jaharada niman jaamacad ka bixin habeen lama joogayee ka cobal jaqaafiyo jariya haadaan ka duulo jubiya kismaayo aad inaad jaad u hesho jareen xun ka guursata. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkanina waa Duhmidiya aniguna waxaan ahay Muxidiin Cabdi. barnaamijka gabyaaga ee Duhmidiya waxa toddobaadkan marti igu ah Abwaan Muuse Sheekh Cabdi Maax oo loo garanayo Abwaan Muuse soo baxay. Abwaan Muuse soo baxay waxa uu ka mid yahay bahda abwaanada iyo hal-abuurka deegaanka Soomaalida. waxa uu ka mid ahaa bahda fanka ee deegaanka Soomaalida Teeriyo sanadii 2005. Abwaan Muuse soo baxay waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo Duhmidiya marka koobaad soo dhaw. waan dhawahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bahda TV-ga iyo adiga iyo asxaabtaba waan salaamay. waan dhawahay. aad baad u mahadsan tahay abwaan. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Abwaan Muuse soo baxay waa kuma taariikhdaada kooban oo waliba dhanka fanka la xiriira goortaad abwaankii hal-abuurkaaga ugu horeeyay waayay mildino kulli hadaan tafaasiil ka bixiyo hal-abuurku de waxyaalo qarnay kula soo maray buu iska ahaa u badnaa. marka anigu maadaama waalidiinta ay gabi jireen sida sheekhaanay dhalo kale awowgeeyo kale anigu abwaan mihi gabyaabaan sanadan dambe baan qofkii wax oriyo dhanba abwaan la yiraahdaa. markii aniga dadku abwaan baa tahay yiraahdaan waa yar yahay abwaanku kulli inuu taariikh sida Cabdullaahi Macallin Doodaan Allah rahme de wax ifjira wax aakhir ina hadu abwaan yahay Soomaaliya gabay hadii aftaan loo yaqaan ama abwaan sheegto wax ifjira wax aakhir jiriyo waxan abuuray waa inuu adarooso sida uurku baala qofka taariikhda had sidii nin awowga oo adu awliyahana oo si aan bareerkaafkaba uu ka sheekeeyay taariikhda aan jiro kale qofkaas kale abwaan loo yaqaan ka mahmahay Maxamed Cabdi hubaal oran jiray waa nin ka mahmahay saddex aniga u nool saddexna wiilkayga u nool saddexna wiilkiisa u nool marka waa anigoo kale ilaahu saddexda wiilkiisa u nool yahay wiilkayga wiilkiisa u nool yahay si san iyo suxbay u gaarsiin saddex aniga u nool tale nin weyn
talanin madax tarangeel loo jeceliyo tag loo abtiriyo gabadh intii laga soo doono afdheer loogu yimaado faafan oo webiyaal loo soo maro saddexda aniga u nool saddexna wiilkayga u nool tag tamba waa naag ah talanin madax madow iyo talanin nugun iyo beer iyo loo jeceliyo wiilkayga u nool saddexna aniga u nool waa midan aniga u nool saddexna wiilkiisa u nool inuu saddexaas xuniisa bay u gaarsiin saddexda adigu u nool wiilkiisa u nool tala xafiis taala oo labadii isku qabsatay qarri juqood odayaashii iyo beeshii xalin lahaayeen xafiiska jigjigana geeya halkaas lagu lasla iman tala xafiis taala taran lacag loo jeceliyo xidino hadda sidii maxamed hawu leedahay 2,000 halaad waxaad lacag baan ku bedelay gaari iyo aan ku iibsano reerka magaalada dejinaya tala xafiis taala taran lacag loo jeceliyo tag macsiyo u badan markaad fiiriso maanta ama TikTok aad doorto ama Twitter ama Facebook aad doorto waxa ka socda ilaahay khaatimada inoo subiyo abo waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kooxihii fanka ee deegaanka Soomaalida goormaad ku beertay sida aad u sheegtay 2005 baan ku soo beeray waxaan anigu markaa ciidanimo ku soo galay ciidanka New Booliska xooga gaarka deegaanka kooxdii amstiya surbaan hadu intii tabarku garacasna uu soo dhanbaan ma garanaysa kooxda ma weelin jiray oo marka iriftiga ay qaadanaysa iyo maalmaha ma garanaysa shirkan raahayo halkaas aan ku ma weelin jiray ka bacdi fankaan ku soo biiray oo xagga leeso dhaadhiciyay dhaantadii anigu hadda aan ku luqeeyay yani gabadha xabsikiin la yiraahdo kiin Umar aan ku wada luqeynay kooway ayada nafteeda maalintaas ku dhaanto wahayd gabadha fanaanada hadda koosar la qaadayso kale dhaantada kiin dhaantada ma xasuusta waxaad ku bilow dhaantada waxa calanka deegaanka marka aanu duruuf ugu yartimid ahaan oo deegaankii hore iska yar dharbaax badnaa marka duruuf ugu timid ahaan oo أنا مركز كي بدبادين هاي يعني أنا كودي أنا مركز وأساسا قاعد ديمقراطية الدولة كي كانوا على داوي صديقه وقال له هذا الدم ديمقراطية الدولة كي كانوا على داوي يدقه ولو دو من عن الله دردور تولو دوسنا بغد كلي دارك نور دصوف دارك هارو مركز ولو لدو من دا يحشاني يطغنو ولو بيضا يو كرو هركيسا كيا هندنو دور شاضا ورونا وربوا لدي عندي كعالا كره قبل ما إله الناس ها وصير لانتظر أكون قاني تبقى كاني أما قبلدي أما لانتوق السيد وقبلي قرقري كقومت استأنوا أنا دي مدام دانتولو صاحا قبلها مركان دانتودا قرقرتهم وحولين جيرين وارجيري جيرا قاران ماينه قبلانو وقارعا وبالقبلة وبدلة وقرقرة وعدكافة قبلانو وبدلة مركا دانتو وحكي قومتها قرقرة يقبلو يا ودانتو مركا قرقرة يهو ودانتو دي أنا لكو سنة أنو كله بارله ما قلنا إذا وقاعد جرو كله برشوايا قلبي ورمويغا قرحا نسيد قوة قالوا قويين النقباد يقرجوا قضاكتاد يقل على اللقايق ويلقب كذا يقان قضادي دهور كي قرب عيدا كلها أفرتي قمانين مقوي قبت سيسو قبايي لقبروش قبوي ندهي ولا واي قبايي ندهي ولا واي قبو محاكا قصون قحوتان ودحجوغا حمر بجو نقر شوايا قلبي ورمويغا قرحا أبو قولي وبارلح مركا دانتدي نوعاسي محدير وهيد دانتدي حتى وحي نقطي ودوكس دحروري ويل بحضي أبو موسى صباحي وحان ربا inaan
bal horta ana ka bixin waayihii dhaantadaada ee waliba bilowga ahayd waxa jirtay dhaanto oo dhaanta qaado yaa ku baashaali inaad adigu sameeyay mareedan aad u maleynaya ana sameeyay goorma ahayd bal sidii qisada ay ku timid kulley waa mid hadda aan ku lahaa in wax la siiyo adroosa fiican waxa cali dhaalto asaga iyo qaybaha fanka ay xurguf dhaxmartay anu markaa dabcan fanka cali dhaalto xukumay kuma jirin laakiin waxa fanka ku soo dhacay waagaas cali dhaalto wuxuu wili qumaati isku deegaan aan ka soo jeedin qumaatina aan ma garanaysaa isku soo dhaxgelin xurguftu asaga iyo kooxdii uu xukumay New Bandi ee dhaxmartay cali dhaalto waa kii kuleede inuu ay aragtay oo yar baxsaday ee uu Nairobi tagay Nairobi markii tagay Nairobi jabhadii wadaniga xoranta ogaadeynaya bulshada oo dhan meel waxa ay ma garanaysaa lagu wada dhan yahay oo mid lagu wada yahay hadii la doono mowqafkii marka xaga aadto dinade waxa afka ku jira afkaada xada halkan wixii laga yaabo in jabhadii qalbiga ka jeclayd balse ay duruuf ku saamixay marka xaga tagto oo meel lagu wada dhinaca tagto wixii waa badiloobi dib inaad u noqon in kala Allah ma garanaysid allaantu marka Allah u raxmeeyo abwaankeeni heelaale jabhada iyo abwaani qaybo bambu sawir habeenkii halkaas kula galay baraha bulshada yaa laga daawaday allaantu deegaankii baa ka maarin waay maadaama uu dhaqanka dhaantaduna aad waaga loo xiiseynayay oo ay hor lahayd caruurtii aweyskii baa ka yar xumaaday marka deegaankii baa wada cabaaday cali soo celiyay cali hala keeno cali waa rafad meeshiina Axmed Budul baa markaa sii qabsaday cali uu soo noqday turba xurgufti ya mudina wuxuu isla dhaxmaray waxaan arkay heelaalo isku soo garab sawiray ninka wiilgiiba jabhadu ka tirsanaa dhaantada bada joole horaan buu qaaday dhaantada cabsan qorma joo wixii baan maqlay cali bashir ana soo codsaday marka aanu jibriga joogan ku wada aan kulano hoolkan joogaa buu yiri habeenkan la soo hadlay taxi wax soo qaatay igu wiil hoolkan ugu yimid si golay ka foolnima bay dhaantay marka yaan u bilaabay durba habeenka waxaan bilaabay sarbeebta asaga cali marka ma fahansiinin laakiin wixii aan marka uurkay ku jiray sarbeeba ya baxsa ya siiday irdihii jannada aad goday isla akray afdheer bay cali waa cadaadle hooyay iyo aabi iyo Allah raxmay wuxuu digin cadaadle afdheer uu ku koray hargeylan ku wada koray jarrati iyo wada joog jir markii goday iyo afdheerba uu ahaa irdihii jannada aad goday isla akray afdheer bay labada gobol waa sameeyeen oo labada gobol xuduudooda irdihii jannada aad goday isla akray afdheer baahayd aagamayn aadine aariya geysay ubax يعني أجمعون أذين باقي علي ما ده كرو أو يفشلن تبي قاون تاي سببتي أجمعين أذين أريا جيسي أوبا الله ذا يكتم الأمانية كلها الإستر كمان أقول أبيه اللي بقاله بيده أرلو كلمة أبي أو ألف أبرك جفاد ما أبل أورنجري وأبي وكم بي لسنا الأحمر أرلو كلمة أبي أو ألف على كمون أقولي إنه يحاوليها أمني أمن يعني أجنح يعطيه لا مركا وإني أرلو كتم الأمانية كلها الإستر كمان أقول كمان أجين أبيه اللي بقاله بيده شريف نين اللي معلو نين مرد هذا الدنيا دارون شو هذا أرمية الصومالي سليلز شريف والأحمر يا نين مثلا قالوا بيتك الردو كلمة الرضا كتمت أمانية كلها كمان بنبدلها استر كمان أقول يا أبيه اللي بقاله بيده هديه يحبقن كيغا لما هلو حاطه وانصو حد اللي سو علي هو الكوين ججيغا هلا يا ما كوتو والله غير سيده لغه أرلذي كتيم ضمنيو كلها يستركومي إنوغي عباهي دالا آلو بهيدها إهديو هبداغن كيغا لما هيلي هالكوين ججي هلا ما كوتومو كناغو دوي دايدا لاغا هيلي دالغوبيدي ما داغ حلاد كسو دما فوغن داغ حلاد ما كسو دايبا
yaa ku baashaaliyana yaa ku baashaali marka socdaalkii samawada dawladda hor u bixisay yay ku jirtay yarka biidka wax qabadkaaga waa loo bogeeyay yaa khaybeelo badda iyo mabiye ka dhoween badda wax dhex yaala Muxiidiin waa xalaal soma aad iyo saan maqlay aad iyo badda wax dhex yaalo dhan libaaxan ee maroodigan waxa loo dhacay waa la culaa aad iyo marka aniguna halkii ka soo qaatay maxaa tirmo yarkan biidka wax qabadkaaga waa loo bogeeyay yaa khaybeelo badda iyo mabiye ka dhoween yani madaxweyne lagu dhihi karo yaa qiimo jirta maya ma joogin madaxweyne marka adigu wax qabadkii iyo abaabulka wada iyo odayaasha la shiri iyo waaba fiican yahay laakiin dadka qoorta jaraysay dadka la iska qabanayo adigu dambi soo qaasay ma dambi kuwa qabto miyaa ma wax bada dhaxyeelay xalaasha u baado qurub xunba mali mansooyinkaaga sarbeebaha aad bay ugu badan yihiin ilaa hadda waliba dawladdan joogto marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sarbeebtii adiga xiriirka idin ka dhaxay ma dhaqan ahaan baad sidaada sarbeebta u jeclay horta anigu reer koonfur baan ahay afdheer waa koonfur markii la gaadhay ilaa gadadaana waa sarbeeb ya aad ugu badan haddaan ku idhaahdo suugaanteedoo dhan baa xagga kale unbay iila daqiiqantaa madala yaabaysaa suugaanteedoo dhan ba xagga kale iila daqiiqantaa tusaale hadda markaan kuu soo qaato inta dawladdan ay dhisnayd kuwa hadda waan u imaan doonaa kuwa aan sii geli doono sarbeebtii xagga ila dhaqaaq laakiin sarbeebtii ma qaawiye Muxiidiino oo maray qabtaa lama garanayo adiga Muxiidiina oo ku karbaashayo qof abwaan tixdheer baa garan kara taad u dambeysay waa la fahmay mar kale ka sheekaysan taa waxa lama fahminay abwaanka hal wadaaga aan leenahay Axmed Royal niyo saaxiibnimaduna waa hal qaali ah abwaanka aan suugaan wadaag leenahay waxba aan ka qarsanay waa Axmed Royal waana runtii Muxiidiina waxaan ku dhihi karaa abwaaninta deegaanka asagii abwaanka leeyahay abwaan hargeyle anu abwaan labada nin baan dhihi lahaa abwaaniin run markaan ka hadlay bulshada deegaanka aan bandhigahay abwaanka hargeyle la yiraahdo iyo Axmed Royal anigan waan ku daba dhifleeyaa dhaantada muhooyada gacal habboon muhooyada gacal fitiri waa dhaantada ugu inkaareed gabdhihii baa waxa Axmed Budul horjoogahoodii iyo wax yiri Maxamed Suleymaan iyo wax yiri garan mahaye horjoogayaashoodii gabdhihii baa dhaartoor calaantay inay muuqaalkii la qabtaan yar diiday habeenka marka dhaantadan baa igu soo dhacday habboonay marooyada gacala ku tiri ragahe laha utumi ku tiri calihe laha utumi yahay hareeri bixiyo hirdoogu egay isubso kaalay halkee loo dambayn doonaa kaalay heeska ii qaade maxaan haybiyo naraadu qabnoon hadhaalay habeena dayda maxamed jabhada inuu la yar haysto maxamed ciil bishinta u cunaya meel hadhaalay habeena dayda waxaan inaan ku biiro dabca ama jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ay bagaranaysaa marka dhanka satide dhulka nogobde waxaan faafan halkii lagu dhale dhayda lagu habiyo dhaxyar dhuubay dhulkan hooya dooranay ka soo dhaadhacde dhoolaf dheerde dhaaf shabeelle qorraxay dhab qorraxay maxaan qaban deegaanka qorraxay baan ugu jecel marka xukuumadda ay jirto marsi ma ay jirtay qorraxay dhab marka qorraxay dhab u dhiga asagu qorraxay dhab weeyaan way fahmeen qorraxay la yiri fahmeen waagibe qorraxay maxaa uga qabtay qorraxay dhab waa maxay baa la yiri marka calaantay la taraaraxday qoliyaha fanka hoolka weydii calaantay iskala taraaraxday anu qorraxay dhaydhan bay ahayd maadaama geelu ku baday hadii neef la abaar ka baxan la yiri xagaas u bedelay ka gudubay waxa ku socniyaa ku baashaaliyay yarka beedka wax qabadka waa loo bagaya khibeel loo badiyay maabiye ka dhulay Allah ayu bushiga baaldukaad kaaga qaadadnimaad beegsatee ku bari baar caday buu oranay baar cadu weeyaan marka yarka beedka wax qabadka loo bagay yaa khibeel loo badiyay maabiye ka dhulay waxay dhaantadii ku imaatay sidii anu aan qabay Cabdi Maxamed Umar oo lugeeyay yaa markuu socdo lehelow iyo yucub iyo lugeeyay 70 kilomitir buu lugeeyay shacabkii baa soo baxay marka yar dhaantadii waxay noqotay naana buurtan iyo baadiyahan lugayna aan la booday bulshadu ma isla beeshanay cali gacantu qaban Cabdi
habaqine ciyaarteena biiri masaar reebadeen oo bulshiya beelanawadan cabdi markuu kacay gasho iyo gabadha celi iyo cali celinaya sidii geed meel banaan iyo buuraad ku yaar aan bidhaantiina dhowrtee dhammaan soo baxa waxaan la yiraahdo ereyga ah isla boodday bulshadu misla beesheenniba kulliyanka Soomaalidu aad buu dhax qaaday oo waxa leeyahay waa erey aad uga jeeday labada jabhadii iyo ciidanka waayo isla beeshaba bulshadu halka joogtay jabhadii bardi joogtay marka hoodkeedii la heli wala la marhay wixii dhan waa jabhadii cabdi waa yar geerin oo burtukoolada istaafkiga ku naba أنا بورتني يا باديها لوينه أنا لبودي بلشة المسألة باش يعني با وراح بقينا عيارته إنه باش بالمسار ربح لأنه بلشية بيننا نبضان هاي نيجا هو وحي كل شو بواحد كستبك على بير نقول وأساس الدانتان كلا تمثل رلي روحاتي تمثل رلي أدو وان ألبو كان لوجود دمونين هاي سي ما قرريسا وحنا هل سلسله كوا صعود وفشل من كرتا تامرka halkan kaga gudbaynaa saasay ahayd tan ma garan bal تمثل waan doonay horta ma تمثل jacayl bay iska ahayd jacayl bay iyadayd waxba ma xubaarsanayn dhaantu ma garanaysaa da'yarti iyo dhalinyarti iyo kuwa waxaysayn haya horta laba gabay baan u gali doonaa oo midna uu yahay ogaadeen yaa loo bahdirin gabay kalena haadku ku sheegay asayna u gali doonaa waxaan rabaa inaan ka hormariyo arintii jiirka iyo bisada aad baan taas jiirka iyo bisadu maanta taariikhda sheegayay maanta ay muddo inay ku soo dhowyeen هذا هلكا وكينها يا ونقول هيدا يوصل دعده حين ما قوم كما باط وحلي قاعد كل سوغانتا سي سبب يوجونتي marka silsilad bay noqotay waan isku jawaabnay marka anigu waan laga aqoonay wariyeen ima helin saxaafadna wax laga ma duubin marka wixii oo dhanba way iga dhuntay jirkii bisada aniga bilaabay xafiiska nabadgelyada heer deegaan ma hortaagnaa hal jawigan haduu isbedelo xaajadan la joojin waayo jigjiga wayaabantahay jigjiga wayaabantoo jilaal kulul baa ka dhacay dhalaankii uu jiibsan lahay jabaqda isku yaadha baahibu la joogilaa jinleydii maasadii dhaantadii la joojiyo abwaanada juuqdi gabo jaabka anagu faarq way gidibki jala kuma jirto gabdhihii wada jahoradana jacayl wax la jilay waa dhaxjoog ma isilaan waan jaqaafino jubada horumartay madooba u jilib dhigiya kismaanjaan u jeedsan oo farmaajan jaar la noqoni jawaab baa iga hadhay jigjiga labadii u sareysay waa maayar iyo madaxtooyada magaalo jigjiga labadii u sareysay jid waaqiya reeysa jiirkiya bisada ku ooman wiil baa isoo jawaabay kulay waana duqfnimo qofka inaad suugaantiisa aad qariso ninka hada tagashan ragnimadiisa geesnimadiisa qarni suugaantiisa inaad qasoo dufnimo wiil baa isoo jawaabay jaajuus baa ahaan jirto jeelkii naga baahayd jid waaqiya reeysa qaday jeelkii xidheen ogaadeen lagu jirdilo dadkii aad jirteen jaliya baad siinayaan جنول الرماليه نمان جامعات كبحين قبلها أجل الحلا جهنم بقلي إلي هذا عبد الجال لجان ما جاي ذاك عقدر جيجي كاب حسنته قبله وضع جهرة نمان جامعات كبحين هبين لما جوجا يكعب الجقافي وجري هذا أنك دولة جبية كسمانيات إن الجاد ونشاط جريان حك جورسته أهبا كنت نسي وبقرنا إذا أنا ونحاي التصطي إنه قبل جاسي أنا إيجا شيء قوشيسه waxay tustay laba xaro anu afreer baanaha reer noqob ma ahayn marka meeshan la nisbeeyay oo de family la nisbeeyay cabdi uu soo jeeday ma ahayn midna jareerta maxaydiino jareertu waa dad dhaqan la wadaaga diin la wadaaga nala dhinta ya marka waa dad Soomaaliyeed walaal in la yaso jareer xun ka guursataa ya كل هذا أركتها سيكون توكله وما إلى النقطة كل كستو صومالي أو إلى في عقتين مجد فيهم بالي مركب أنا وصفي عملوا كل حاجة جين لي إذا أنا باللعبة أنا أقول جيت كلها تجي بين كوبارنا جيت كذي وانا هلا جبابيرتي هورية ويا رجل الأولسيد وهجرين جيده ما صدق وجين لعبة جد واقع فرال النقط قرات كيو أجر جوك جيران وبحاكو صار شلون جيل صومالي جيجوين كا كوحل صار
bulshada horjoog u tahay ilaa Jubbi iyo Kismaayo hal qabsigu waa jiraa jaa'ifadul qaadiyaal ujeedkaygu waa hal meel jidka jarar baan hayaa jinsiyadka iyo xigiye jaahuurka barbaarsana madaba ninkiisu jawaab jaahuur reerku ahaa jaahuur aad ii dhageys haddaan jaajuus ahaa jawiga shalay jiru ahaa adu maanta xaaqa iga dhigo wax un iga dhigo waa ma diidi karaa xukuumadda hayste ma diidi karo waxaad darsato maan raalli ku ah haddaan jaajuus ahaa jawiga shalay jiru ahaaye haddaan jeelkii xidheen ogaadeen lagu jirdilee Soomaalida lagu junjumo jigjiga hormarinaysan jinoola raamaalihii niman jaamacad ka bixin gabdhaha u jilib xilay hadal cabdi jeel dhigteen janniyo wabi soo furteen jabaqdu xagay ka yaadhay qabyaaladan jamashiya jirada fayras ka daran jigjiga maxaa ku beer jaaraan isbariidin in jigjiga maxaa ku beer jinsiyadday niman ahayn dhabuub jeeyna guruubo jidadka noo joogsado aadmiga jeeb baadhanaya gabdhaha kufsan oo jibdile anjuuq loo oran karay iniga miyaa la jira jaarsiga gariga isku diray ogaadeen iyo jid waqlabay dad isku jeclaa jiilkii absamaha hay jidin qudub quudin jiray jikraha ayaa isku cabay jagada iska qaatay adduunka markii guriga la iska kiciye darisku iscun ya culaadu dhabowda burigaana waad garanaysaa 12aad anigan baa layga qaatay oo halkan layga booska layga qaatay alleedaay ninka sabab jingada laga furay jagada iska qaatay markay isku jeedsadaan ka faa'iidi jaaniska shidaalka u jeeda jeexdi jaahuurtuna ay dareen inaan u jirin walaalkii qabyaalad u jeega xiir sokeeyaha joog dhageysan jidka nagobo iska eeyo xagga dahro u janjeer jirada hadaad u sheegto cadowga ma jaleecay meelba u jikaariyay jidinka ilaahaygo ana jaajuus aqoon ana jiil awriyahana hadana dagajaha balaar shanta wajacelo ku faana ana la dheer jiro boqol sarceel bardiye ilaa jiinka waba ilaan cadaad la wixii ku jooga la dheer iyo gaar siran jamaamiye jawhar dag Jubbi Kismaayo way la qaxooti ku jalaadadaan gaar ahaan NFT-na jira Kenya jabal weyn ka oo dawaaro loo jixinayaa kabaandhankan u jaridisiye maalin jooga kari leeysa kabaandha awliyahan waad garanaysaa Kenya jabal weyn ka oo faarax macallin dawaara Kenya jabal weyn ka oo dawaaro loo jixinayaa kabaandhankan u jaridisiye maalin jooga kari jareerta ana yasay waajiil Soomaaliyada ana aadamaha u jecel jidka iyo saaranta axmaarada xaq jirkii ormadan jaarkan iyo jinsiyada taageersan tahay johoradii ay ku siiso jaahur jaal hayga qaadin jareertan ha u gafina jiinleedina ha tixraac kabay ninkii halkaas ku xirmay asagaana iska xidho jareertaas iskaga xidhay adi kulay wariyada halabuurka waxbaad ka garanaysaa marka taa waxa kale oo iiga dambeysay markii aan abaarta ka soo qeyliyay Muxudiinow markaas abaarta ka soo qeylay marka abaartan ka soo qeyliyay xisbiga BBN maanta isku abaar ina baraha bulshada ku aragtay kulay si yar de waxa aan anigu telefoonku duubay baa ahay ma arag abaartii walaal abaartii inkaarayd baan halka ka tagay aabaan isbitaal la madeereeyay abaartii oo waxa madeereeyay adoo iska doolow abaartii waxaan arkay aad wadankii meel marka waxaan soo maray ay dugaagii wadada ku istaagay haydi wadani haduu dhaqaadi wallahi ku dhaartay wadani haduu dhaqaaday wardii la waan sida kor u qaad xoogaa wallahi ku dhaartay wadani haduu ka deerayo wardii la waan sida wadankii hooyaan ka imid wadartii waan soo dulmar waxyeelo weyn baa jirto war dheer way oo manayd walwal waa biyo la'aan waadigi shilaabiye wadankii qorxay ka daran wabigi shabeelle gud warawgi waa yaray afdheer rawadi qalaan wadalaanta hore wanta aan baa u dheer taawiye liibaan war male nogomna weyse lama yaqaan istijawarkeeda dah waxay erar baa ka waxay nogomna weyse lama yaqaan istijawarkeeda wala erar baa la mid waxay city baa ka darno waxyeelo colaad u dheert waadiga harawiye tuliye wajaalada aad ogeed weerasha lagala hayaan jarra waa horeyba oonta waya kadi faafaneediyo jigjiga weyna waa taqali jirkaankiba wuxuu socdeen garanaysa mooyeen konton bir shan labaatan bir danyar ma garan kartaa jigjiga weyniyo waadigi waxay city baa ka daran waxyeelo colaad u dheertay waadigi harawiye tuliye wajaalada aad ogeed weerasha lagala hayaan jarra waa horeyba oonta waya kadi faafaneediyo jigjiga weyna waa taqali isweydiinaya su'aal شخصنا ما ويرناي ودني دعادانا أبوان وافيانا
bulshada wakiil ka ah wixii jira waan cadayn away xisbigii waxna ها وليبا وركا دورشدي bay ka baxeen waliba istoortay ya waxyeeli iyo anigu qeylimiya bulshada ya waliba istoortay barwaaqan soo wada wadankana waan hormarin waagi uu yimid nayid bibi muwaaliya mise wareersan yahay wab iyo jeel baa yareey jabhadii wadanka imaatay bulshadu way yaabta xagee wax noo dhigan weelasha aan la kacnay caagadi waan wadanaa xagee wax noo dhigan weelasha aan la kacnay xarigi baa la daayay xuri xarigi hadii la daayay ma waro xarigi la jabhadii wadanka imaatay adiga maxidino duur ku maqan aniga dinina ima deynay oo hada adisaba waa tagtaan maray ayaabahan go'artay ahmaarada kiyar ganacsi ama waxa maadaama faaradu ku jirto waa la wada ya boobeelada baa la wada fatish adiga marka duur ku jiriya ku deyn lahaa waa in xabsi lagu sameeyo suma garan wabiga jeel baa jiray wax qabad noomay xageebay wax noo dhigeen weelashaan oo la kacay waraysiga kulli waa dheer yahay arrimaha duruufaha jacaylkana laba qodob baan yaan rabaa inaan ku khatimi doonaa laba gabay oo inaan ku weydiiyo abwaanka hal abuurka qolli qorqod biyo kuma cabto ma yeelan karse dhaqanka abwaaniinta maasadan aniga iga soo baxday marka hore meelaan ula jeedayba hal meeshan soo jeed ku dhimaay waqti horena way ahayd dhaantadii cabdishakuur uu soo sameeyay ee calaantada soo qaaday yaa si niman ka falceliyeen rundawara iyo niman ka falceliyeen marka bayt ruusan anigu u dhigay iyo sida loo qaaday waa laba kala mid markii nimanka si uga falceliyeen baan cali uu jooga hadda yaan la hadlay oo taabkan kala hadlay waxaan leeyahay dhantaas yaan magaraysa nimanka wax soo qadqadahay ku karbaasho yaani hadana hatu kala beeninaysa inuu abwaan soo dhiibay oo waxba aan ka jirin ku cadeen cali waxa sidii aan nahay oo waa ka howlgalayna yiri waliba xawaalada taaj asay u jooga ila soo hadlay xawaalada taaj tago maskaxda u sii dhiso caawa xilli cali aan wada hadlay dhaantadii baa soo baxday silsiladii dhaantadii baa markii yar aflagaada noqotay sida gabaygan jareerto kale aan ku sheegay sida baway dhaantadii ku xidhantay orda rundoora dhaantada ka qayb qaadatay baa mid baad ahayd ma dhaxasin daawani maya yani kama qayb qaadanin mid kan ka qayb qaatay baa tan ahayd markii ay anwar yaqaadeen muhidiin iyo dhaantadii naga xidhatay marka warka kaba dambaystay deegaanka ka jiraan ku dulmar calow baahid dalkii deegaanka waxa ka jira rooda ayoon dhirtii doog lahayn baa ka jira dayax muqdoon mugdiga doorinayn baa ka jira daara foqloon dhaxanta dalfinayn baa ka jira wata loo qandhada dajinayn baa ya ka jira doox waraabo dadka dhan nacay baa ka jira turtur ceeloon wadaan doojinayn baa ka jira neef hal dooro mar qura dihinayn baa ka jira tirsiyo dagaal lagu qaadaa ka jira dad qixiyo qaxooti dagaaga ka jira isku duudu markoo dalkii waxa ka jira keeri oo dayr dhaloon caana loo doonanayn dadka qabin cadays waa meeshan hadda lala simay godka kale ku degdegay min yara mar dooxay u lumay u darsaday min weynadii aan waada firay dadku yaadiya jacaylkayga doqonsana dawladii hore la dagaalanteen godka dhanna waxa qaawiyo intaas marka intaas abwaan Ahmed Royal iyo abwaan kale oo hadda anigu hebel ku dhiimay la sheegay Ahmed Royal iyo abwaan kale oo la sheegay mid ku daray Allahu yaclam laakiin kullee Ahmed Royal uma suugaanta la wadaagay oo ma garanaysa aan isku kalsoonay waxaan qiyaasayaa kala dawladii hore la dagaalanteen Ahmed Royal kuma darin kuma darayo ya adu inta sameysay dawladii hore la dagaalanteen ma aysan ku jirin kuma jirin isku duudu markoo geeli oo dayr dhaloon caana loo dooninayn dadku qabin cadays dara le maaragteen geeli wuu dhalay cadaysna laba qabo dara le maaragteen saas ay ahayd ruuxantii
marka anu maalintii waan ka hadlay laakiin de 200 sentii abwaan oo ma garanaysaa sidoo abwaanku waxa loo baahan inuu cadaalad ay ku wada dhintaan bahda suugaantu in cadaalad muhiim ku wada dhinto adigan bahda suugaanta waxbad ka soo gali wariyii baa tahay ma kala dhamaataan adiga naftaa bahda suugaanta wixii laga khaldan yahay waa inaad ma garanaysaa ama abwaanka laga khaldan yahay anu marka inaan ma garanaysaa dalkaygii mushaar ilaa xilliga mushaarkaygii lama joojinin mooyi meelo muhiim uu ku socdoba anu markaan ilaa 6 bilood soo noqon hayo warqad mushaarkaygii 7 bilood ay dul saaran tahay inaad ma garanaysaa inaan social media iyo ka qayliyo iraado mushaarkayga oo saa loogu khaldamay shaqadayda anigoo ma garanaysaa abwaan anigoo askari booliska kulay waxba uu soo kordhinayso kumba ila mida inaan ma garan wadankayga wixii halgan ah iyo wixii ma garanaysaa horumarin ah iyo wixii halkayga unaan ma garanaysaa abwaanku si waa hanuuniye nin hunguri iyo u qayliyo waxaan rabaa inaad sideedii bal ugu luuqayso dad garanayso dantadan dabqahayo biya khadiirinayn ma aragteen dayax muqdoon mugdiga doorinayn ma aragteen dawataloon qandhada dajinayn ma aragteen daara foqloon dhaxan dadalfinayn ma aragteen ku degdegay miyaara maru dookhay gulu darsaday min waynaadiyaan waa dafiire dadku yaabiyay jacaylkaygu doqoonsana egeeliyo dayr dhaloon caana loo doonani dadku qaabeen cadday haystaaralle ma aragtee marka godkan inuu qataar yahay ku qanac bulshadana ku qanacdo oo god ma garanaysaa laablakac loogu fanaankana loogu khaldamay ila tahay oo xataa sarbeebta fanaanka iyo dhaantay xiiseedii hadda lama dhageysto xiiseed maxaa dila godkan dawladda ku saabsan dawladdii hore la dagaalanteen asagaas iyo anigan iyo kulli qalbiga de waxaan ka ahayn jabhadda wadaniga asaguna wuuba xaggaa u jooga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya marka wixii la dagaalamay dawladii hore ay malis iyo diidana juhdigii iyo eriyashada anaga ba ka mid ahayd waatan ku leeyahay maxaan haybiyoon haraad u maroon xidaalay habeenadeedii Allah oo xiisaha iyo dhibka u qabay markaas walaal wax anagi ma garanaysaa anagi aan gacantaanada isku dilin isku duqaynayno soo ma noqonayso abwana aad baan runtii kaaga madcelinay waqtigaaga qiimaha leh waxaan rabaa inaan ku weydiiyo gabaygii ogaadeen loo bahdilin gabaygaas haddaad xasuusato gabaygaas qiimo leh bari hore waxaan joogin baa maanta soo badan run basaasta been dawladda baawar iyo xoog leh bisad diir la saaxiibto boos magacood ida buufisqa bisad diir la saaxiibto boos magacood soo kala dhig ida buufisqa oo riyaha nicbi dhaantooda maylihii bardoodani waxariyo board ka kici waay lo banooni dheelaysi galbilada qaato indhaha ka daawan oran martooda markay joogtaba wadadan xidhno qeyra kacsan ugu dhii Soomaaliya waa shib lo banooni dheelaysa iyo galbilada qaato indhaha ka daawan geel ku tuman jiray Soomaaliya indhaha ka daawan baabil xiraatay wadadii maad qeyra loo marilay lama mari karo adisoo loo kici karo leey lo banooni dheelaysi galbilada qaato libaaxa oo bakayluhu eriyani baawar xumadiis yu booliska afar kaarbiin wadata ay qabanayso ka soo ya libaax oo bakayluhu eriyani baawar xumadiis waraabaha barti lagu oga kor oga soo boodo bal hada kuma aan ogeyn bilida Soomaaliya bilida Soomaaliya baaritaanka guud iyo inta hawshan bogonayn xaqiiqadu inta soo fixi ee run loo baxayo ogaadeen yaa loo bahdina way shabaadada ya marka dadku waxay u haystaan sida hadda madaxweynaha deegaanka kale iyo meelahaas inaan anigu ya ala xalligan aan joogo anigu wali madaxweynaha deegaanka in jacaylaan ilaahdaa markaan ilaahdo weerar ku qaad muxidin sawirkiisa iyo xuma arkiyo de family kooda aad ma garanaysaa xukuumadii hore guriga noo xigaba aan degnino aad aan ma garanaysaa u jeclaa oo isku kalsoonayn baa jira marka way ka weynayd ogaadeen yaalay bahdin weesha baadida
يعني waxaan ogaadeen deegaanka kama dhicin ogaadeen qabiil hadda markaa soo kama waciidi يعني wax ma garanaysaa soo waxba jiray yani loo bahdilin arrimahan awaan musu soo baxay oo waxaan rabay gabaygii haatifku ku sheegay xilliga aad tiiftay ma haatifka telefoon baad kula xiriir haatifku ila hadlay wiiltiisii sidee waa rabasada wuxuu yiri haatifku toos buu warba ku sheegay haatifku waa maxay horta haatifku waa wax adoo jifa hawada ka yimid oo war niyadaadu suugaan ama war ku jira atoost haye haatifku wuxuu yiri waa gabaygaha siqdaxa anoo xalay anoo siqdaxa anigoo siqdaxa lay waxyooday samada haatif iga yimid si sax war igu sheegay suugaantii maasadiyo siinleedii maasay suugaanta adoo u fiirsan sarbeeb anigoo ka wadin halkay saldhigtay abaarto Soomaaliya ila dhageysta warkiisii oo saxa anoon xaraf aan ka seegin sida tan ku dhigdhigi saliidu ma noqon batrool saliidu ma noqon batrool saxanku maseed baa noqonay salad masalax baa noqon sakaar masun baa noqonay subag saliidu batrool ma tahay hadalkaas basaabihiyo sirtaay suxufigu wataan Soomaaliya ha dhageysanine talabaan soconayni baa sida u tul yurtaay ka saraka oo ka fiirso sabsaba kor buu ka jiray sideedii hogaamiyay manaasiil baashiraysay suuriya dirir wada fadhiya safteen ururiye ducay safkii afagaal la sugi sagaalaad cirjiir dubaday ayuu isa say ka yimid ismareen suxul iyo mariiq saadaashuna waa abaar sayrtii koonfureed lawaa samada fool baa ku taagan jacaylka sideed jirka ma suurtoobin caashaqe ninkii soconoo tagiyow saahidii waad haysataa waxaan maareeyay ninkii soconoo tagiyow saahidii waad haysataa haatifka marka sidaa haatifku waa saa'ile haatifkii laba habeen ka bacdi Allahu rahmeeyo waxa dhacay dirkii Juweeriya Allah yarxam suma garan marka kaasi iyo sii waday saadaalintu kaasu isii waday marka adaa wad jawaabi doontaa ma jawaabin jawaabteedana waan iyo arrimo kale oo jacaylkiyo waan ka wada kulmi doonaa ma garatay waraysigoonu inta kuma dhamaanayo maadaama aan abaan qulaji hadda aan raba inaan la baxo waxa la yiraahdo waayahan dambe waxaad joogtay qulaji waxaan nahay abaan qulaji oo ma hadii lagu dhigi doono balse xaaladda qulaji ay ku dambeysay qulaji wali xaaladdeedii maantadan oo kulankeena igadan telefoonka soo garaacay waa qulaji xaafadii waan dheelmanaya qulaji horta qaranka degani nadiif way qaaliya dadnimana way u qalmaan quraankii xadiiskii Allah qaadiraan ku dhaartay qamaamka orama hadii qulaji aan joogin dhulkan laga qaadan la soo garan qadiyad Soomaaliyeed qulaji wax loo qabto qulubta aan dhamaan laga ogaadaan dhihi lahaa anoo suugaanta ku soo hagaajin doono maansooyin badan oo qulaji aan magaranaysa ku saabsan waan ka kulmi doonaa insha Allah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan Muuse soo baxay oo maanta martii ugu ahaa barnaamijka gabyaaga ee Duhmidiya intaynu barnaamijka kan xiga ku kulmayno nabaadiina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh